I'll tell you all about it when I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been. kusoo dhawaada YouTube channel keeni Qisology chapterkii labaad oo loo yaqaano mortgages ama amaahda ayaan kaga hadlaynaa. Waxaan kusoo jirnay course-kii wax loo yaqaano real estate transaction-kii. Mortgage waxa weeye waa amaahdu يعني real estate marka la joogo marra sales weeyo marra waxa leeyahay waa buy sales oo paid back baa la sameeyaa without interest marna waxa weeye waa mortgage baa la sameeyaa marka mortgage marka la sameeyo so long as the borrower complies wuxuu ku leeyahay hadii deyn qaatuhu ku xadgudbo amaahda yani qaabkii sharciga agreement-kii waan waafajinay sida lower interest oo sanad el-ediskiisa 30 sano in fixed marriage 30 sano lagu talagalay 4.5 xalay boqolkiiba 4.5 average ayuu leeyimi waxa yeelay wuxuu ku xadgudbay qaabkii loo qaadanay deynta loo qaadanayay xalay amaahda loo qaadanayay ayuu ku xadgudbay real estate kuna waxa loo isticmaalaa uu ku leeyahay rate of more than 5 per year wuxuu ku leeyahay kala bixinta amaahduna waxay qaadanaysaa boqolkiiba 5 sanad kasta يعني بقول كيف شن بسنة كستلا بحنا يصيروا agreement يقول لك يو agreement يقولنا معها واحد سكوا فقدان ما نقول agreement واحد شرط يقدر هو يلا تعالى ميكو يقول لي American Hall offer 10.3 تريليون يقول لي أنت سو تريليون وأماها بقى كده حدا يقول لي أمريكا قديسة مركل الله يجو أماها صو ده كود سريان qaab ka loo qaadanay laakiin sharci ku fadhida wuxuu ku leeyahay hadii uu ku xadgudbo sharciga amaahda sida public service oo kale inuu sidee maartay daahfuran u iibsan waayo iyo waxyaabaha lamida wuxuu ku leeyahay hadaba in la abuuraa amaahda promise note iyadoo la sameeyo wax loo yaqaan promise note ama security agreement labadaas lama waayi karaba labada note hadii aad doonayso inaad create mortgage sameeyso oo ah maarta ama sameeyso waxa ugu horeeya promise kaasoo ka sii dhalanayo wax loo yaqaano jadwalka payment-iga qaabka loo bixin lahaa qaabku ahaan la si loo kala wareegi lahaa iyadoo note-ka labada qof oo ka dhaxeeyo waliba wuxuu ku leeyahay promise name waa in la helaa property address la helaa loan amount la helaa interest rate la helaa iyo sidoo kale bantates la helaa debit payment date iyo waqtiga la bixinayay wuxuu nagu tusaalanayaa most states have usually says which penalty wuxuu ku leeyahay dhammaan gobolada laga isticmaalo interestiga gobolkaas uu gaar u calaamadiyay Mareykanka khaliilada Mareykanka wuxuu ku leeyahay waxay awood saaraan wax loo yaqaan promise note wax khaladana ma dhacaan gabigoodaba oo kaasay awood saaraan inta dambana way hagaagtaa uu ku leeyahay criminalize charge high interest rates kuwa dambiga galowga ku leeyahay 60 cisha la xiraa qofku haduu ka gudbo xaaladda koowaad oo uu ka boodo permission note-ka wuxuu ku leeyahay xarigiisu 60 cisho noqonaya hadaba permission note-ku oo ah ka ugu horeeya documentiga ugu horeeya la sameeyo kaasoo la xiriira uu ku leeyahay qaabkii iyo sakrigii wuxuu si toos asaguna ula sii xiriiraya security agreement-igu laba qof uu ka dhaxeeya waa borrower iyo lender waa amaahiyihii iyo ninkii amaahda qaadanayay security agreement-igu wuxuu leeyahay wax loo yaqaan title borrower-ka title-ka haysta security interest-gana lender-ka haysta waana legal interest in the property marka hantida waa sharci u yaalo waliba interest waxaana qasab uu ku leeyahay in shuruudahan la buuxiyo of transfer si loo kala wareejisto wixii shuruudihii horta chapter-kaas intaas ku eegay chapter-ka labaad security interest-ga la galaya ashirka labaad saddexaad baan kaga hadlaynaa